السلام عليكم خيارتا و جي ان تريدز مرلباد kusoo dhawaada kani waa cidii ku jirtay Telegram-ka way garanayaan waa trade-kii aan soo dhignay maxay Thursday-dii Khamiistii aan soo dhignay total P&L kana wada aragtaan oo 1482 buu ahaa oo pre-market-ka aan soo dhignay wixii oo dhan waan idin calaamadinay cidii Telegram-ka ku jirta si fiican u garanaysa marka the thing we posted was this one. Can you find the setup? Hadda post gare fikir calaamade dadkina qaar baa noo soo dirdiray Instagram-ka iyo Telegram-ka waan aragnay. So hadda waa nushqadii aad isticmaalaysay oo ah setupkii intii hore oo dhan aan soo dhignay waa only one model. Hadda model kale ma soo dhigin waa exactly the same model over and over and over again. Waa very simple. So markii ugu horeysay 9:30 waxaa calaamadeynayay maxay ahayd two objective markasta the closest buy side iyo sell side buy side-ka iyo sell side-ka so buy side-ka haddaad rabtid inaad la qaadanayo waad predict gareyn kartaa oo waad faaleyn kartaa siday noqonayso waxaad rabtaa waa tan buy side-kaygii intuu la qaato la yara sameeyo wax la yidhaahdo swing low haddana high kale la sameeyo swing lowgan high-gani u jabiyo xaggani waa market structure shift waa keenaysaa so between the market structure shift iyo high-ga qaadatay buy side-ka gudaheeda waa inaad fair value gap ka dhexeshid oo ah entry model-kaaga so horaantii adaa garanaya waxaad tidhahdaa buy side-kana la qaatay hadduu sell model galayo waa inuu marketku sameeyo maxay ahayday market structure shift waa inuu swing low u jabiyo kadibna fair value gap kaga tago kadibna uu galo kadibna uu ku tusiyo reaction inuu downside ka rabo inuu socdo so hadda prediction keenu waa intaas xagan marka la qaatay buy side-kii isla markiiba intan area-da waxay noo tahay stop hunt kanadaad aragtidna waxa weeyaan waa fair value gap marketku markuu ku xiri kari waayo kala badhka fair value gap-kan oo kale wuxuu ku tusinayaa waa very weak ma gaadhayaba only 25% ayuu ka gaadhay 50% xitaa mabuu awoodin bade maybe waa 15% uu ka gaadhay swing low-gan waa maxay waa tii market structure shift inoo geenaysa stop hunt buy side-kii baa la qaatay market structure shift exactly market structure shift kan markaan saa u sameynayna isla markiina waxaana looga tagay maxay what's this a clean fair value gap after buy side-ka la qaatay after market structure shift la sameeyay ayuu fair value gap ku sameysmay so fair value gap kan ayaan entry ahaan u isticmaalay after 9:30 after buy side-ka la qaatay after market structure shift after fair value gap la sameeyay so marketka tad arkaysid hore uga yara baxay haddana laakiin order blockigan markas uu istaajiyay anyway stop loss-kaagu xaggan ahayd so price-ku was very good reaction off of it from entry-ga xaggan to exit-ka xagee sell side-ka so hadda intan cisho cidii Telegram-ka ku jirta waxaan idin tusinay the exact same model maalin kasta the same model waanu GN Trace wana mahadsantihiin casharada kalena saa la sii socdaa